sidee ula dhaqmay qof isku dayayo inuu qiimahaaga hoos u dhigo ama ku yareysto. Waa kuwan talaabooyin fudud oo caqli badan balse saameyn xooggan leh. 1. Isticmaal muraayadda aamusnaanta. Haddii uu si toos ah kuu caayo ama kuu dhayeelsado, si degan u eeg dhowr ilbiriqsi adigoon hadlin, kadibna sii wado wixii aad qabanaysay. Aamusnaanta xigmadda leh mararka qaar way ka xanuun badan tahay jawaab kasta. 2. Ilaali wejigaada inuu dhexdhexaad ahaado. Ha muujin xanaaq, niyad-jab ama farxad. Wejigaaga ka dhig mid aan muujinaynin wax saameyn ah. Tani waxay ka reebaysaa falcelinta uu raadinayo. 3. Ha ku bixin waqti badan inaad naftaada sharaxdo. Qofka qiimahaaga yareysanaya uma qalmo inaad tamartaada ku bixiso qancintiisa. 4. Ha muujin xanaaq ama caro, sababtoo ah tani waa waxa uu badanaa doonayo qofka ku dhibay inuu arko. 5. Yeelo xuduud cad. Bilowga horeba caddee waxa aad aqbalaysa iyo waxa aadan aqbalaynin. Marnaha ka tanaasulin xuduudahaas. Xasuusnaaw, qofka ugu adag ma aha kan qeeliya ama xanaaqo, ee waa kan awooda inuu xakameeyo markii la tijaabiyo. Kuwaani waa qaar ka mid ah xeeladaha cilmi-nafsiga madow ee aan si qoto dheer ugu sharaxno buuggeena Garaadsiga Cilmi-nafsiga madow. Buugga waxaad ka helaysaa linkiga profile-ka saar ama lambarka meesha ku qoran.